rabaa halkan inaan fariin dheer uga diro labada gabdhood ee walaaliheen ah ee aniga walaalahay ah muslimka ah ee idinka walaalihiin ah. labada gabdhood waa kuwama waa labada gabdhood ee kale ah queen xabso iyo gabadha la yidhaahdo rayaan. labada gabdhood ee walaalaha aniga ila ah ee muslimiinta ah ee soomaalida ah ee idinkana idinla dhashay. walaalahaas ayaa caawa waxaan jeclaystay oo dagaal dhexdooda ka jiro oo social mediayihii fashil fara badan iyo foolxumo fara badan iyo buuq badan ka jira oo labadaa gabdhood dhexdooda ka bilowday ayaa rabaa caawa inaan uga faa'iidaysto fariin inaan halkan uga diro. labada gabdhood ee walaalahay ah waxaan rabaa qur'aanka kariimka ah inaan ku waaniyo oon aayaadka qur'aanka ee kariimka ah waxyaabo badan oo inaga reebeen oon u arkay labadeenna gabdhood ee walaalaha aynay isu adeegsanayaan inaan ugu naseexeeyo. diinteennu waa naseexo, nebigeennu waa ku lahaa addiinu naseexa. diintu waa nasteexo, waa in walaalkaa loo nasteexeeyo. waxaa kaloo rabaa xadiidta nebiga ee ku soo aroortay naseexada iyo wanaag farista inaan halkan labada gabdhood ee walaalaheen ugu gudbiyo. idinkana waxaan idinka rabaa dhegaysan doona ay soo gaari doonaan kiliibkaasi uu soo gaari doono iyo haddii laba qaybood uu noqdoba inaad usii gudbisaan ood idinkuna u naseexaysaan ood wanaagga iyo walaaltinimadaba aad kula dadaashaan ood u fidisaan. waxaan rabaa inaan ku bilaabo labada gabdhood ee walaalaheena ee kale ah queen xafsa iyo gabadha la yidhahda rayaan. magac kalaa loo raaciya laakiin waxaa laga yaabaa inaynan raalli ka ahayn sidaa liajligeed qur'aankuna wuu diiday bi'sa lismu lfusuuq bacda aliimaan buu qur'aanku leeyahay. ma aan raba inaan ereygaa ugu daro ama magaca ugu daro walaasheen, laakiin magaceedu waa rayaan. rayaan waxaan leeyahay, queen xafsa waxaan leeyahay, aad u dhegaysta hadalkayga. aniga waxaan ahay walaalkiin oo soomaali ah. waxaan rabaa inaan idiin naseexeeyo. waxaan rabaa dhammaanteen inaynu gabdhaha walaaladeenna u naseexayno. marka dadka waanadoodu way ii dambaynaysaa. waxaan ku hormarayaa labadaa gabdhood ee walaalaheen ah ee khilaafka ka dhex jiro ee hadalka xun isu marinaya ee suuqa ayagoo laga yaabo xataa inaynan labis fiican lahayn dagaalkii la sawirayo. waxaan farayaa aayadda qur'aanka ee kariimka inaan idin xusuusiya. ilaahay qur'aankiisa ku leeyahay laa yuxibu allaahu aljahra bisuu min alqawli ila man dulima wa kaana allahu samiican caliima. alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa yuxibu allaahu ilaahay ma jecla aljahra bisuu'i min alqowl inay qofku uu la jahro kor u qaado oo walaalkii uu u gudbiyo oo bulshada dhexdeeda uu ka dhex dhaho hadalka xun. aljahru bilqawli min asuu aljahru bisuu'i min alqowl hadal xun inaad dadka dhexdiisa aad ka sheegto. heblay dhilaa tahay, heblay sidanaa tahay, heblay saanaa lagugu samayn jiray, lama ogola. ilaahay qur'aankiisa aayaddaasuu inoogu sheegayaa oo wuxuu yidhi laa yuxibu allaahu aljahra bisuu'i min alqawli ila man dulima. hal qof baa loo ogol yahay inuu hadal xun oo isaga lagu yidhi inuu ka aarguto oo isaguna uu ku dhaho hadalkiisii. waa qofkee? waa qofka la dulmiyey ee lagala horreeyey. waxaana ka fiican faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah. qofka cafiya ajarkiisa ilaahay buu gacanta ugu jiraa, ilaahay baana ka ajar siinaya. inuu cafiyo una ka aargoosanin ayaa fiican. ilaahayna subxaanahu wa tacaala mar kasta ood kelima xun sheegayso, mar kasta ood qofka walaalka ah hadal xun u gudbinayso, muslimiinta dhexdooda ku dhegaysanaya hadal xun aad marinayso, samiican caliima, wuuna ku maqla alle subxaanahu wa tacaala, wuuna og yahay waxa aad samaynayso, meesha aad ku samaynayso, dadka aad ka dhex samaynayso, qofka aad ku samaynayso, intaba ilahay wuu ku ogyahay. wa kaana allahu samiican caliima, ilaahayna wuxuu ahaaday mid maqla hadalkan xun marka aad dhahayso. zaaniyad baa tahay, qaxbad baa tahay, kanaa tahay marka aad leedahay eed walaashaa ku leedahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku maqlaa wuuna ku jeedaa. xataa qofku hadduu waxaa ku sifaysan yahay laguma ogolo oo diinteennu kuma ogolo inaad ku caydo qofkii walaalka ahaa ood arrintii xumayd u gudbiso, kuma ogola diinteenu. walaalayaal, labada gabdhood ee walaalaheen ah waa kuwiin xafso iyo gabadha la yidhaahdo rayaan. waa laba marwo, waa laba gabdhood oo soomaali ah, waa laba gabdhood oo muslimiinta ka mid a, waa laba gabdhood oo dubkeenni iyo jirkeenni uu leeyahay. jirkeenna oo kale leeyihiin waa inaga jirkeennii, waa gabdhaheennii, waa walaalaheen. welibana waa laba gabdhood oo youtuberley ah oo dad badani ku xidhan yihiin oo mid walba dhowr boqol oo qof fiirsato oo wax kasta oo soo dhigtaan haddaad kareem xayeysinayso oo soo dhigto, haddii wax kale oo bulshada ay dhegaystaan aad soo dhigto bulshada danaheeda ah, wax kasta oo soo dhigtaan ha xumaada ha fiicnaado, waxa xun lama ogola, laakiin waxa fiican ee soo dhigtaan iyo wax walbaba ummad baa idinku xidhan. ummaddaasi khayr iyo wanaag bay idinka qaadataa, farxad iyo waxay dareemaan markay idin daawadaan, wanaag ayay dareemaan. waxayna jecel yihiin inay idinku daydaan. gabdho badan baa jecel inay idinku daydaan, wiilal badan baa jecel gabdhahiinan wanaagsan waxaa samayseen inay iyaguna sameeyaan. haddaba waxaan idin leeyahay walaalayaal, labadaa gabdhood ee dagaalku ka dhex jirow, aayadda qur'aankaa si fiican u dhegaysta. ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala laa yuxibu allaahu aljahr bisuu'i min alqawli ila man dulim wa kaana allahu samiican caliima. aayadda labaad een idinku waaninaya waxa weeyaan, walaashaa markay wax aad ka sheegayso hadday ku sifaysan tahay waxa aad ku sheegaysa xumaanta ah ee dadka dhexdiisa kaga dhawaaqayso, gabar kasta mid waloo labadiinna ka mid a
ama qof kasta oo ama wiil ah ama gabar ah oo dhaqankaasoo kale la imaado haddii uu qofku waxaa ku sifaysan yahay waxay noqonaysaa xan ayay noqonaysaa. hadduuna ku sifaysnayn uuna waxaa ahayn qofka aad ku sheegaysaana been abuurad masabid iyo buhtaan bay noqonaysaa aad qofkii wuxuuna ahayn ku sheegayso. ilahayna qur'aankiisa wuu inooga digay arrinta oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuh. ayuxibu axadukum mid idinka mid a ma jecel yahay an yaakula laxma akhiih walaalkii hilibkiisa inuu cuno ma jecel yahay. walaalkii baa la yidhi maaha in adeerkii maaha qof kale oo la dhashay waa walaalkii hilibkiisa inuu cuno qof idinka midii ma jecel yahay. haddana sifo labaad maytan oo dhintay baa la yidhi hilibkii walaalka oo haddana meyd ah. cajiib waa meyd qof nool hilibkiisa si unbuba uga ronan lahaa qofka kale haddana waa meyd. waxaa la mid a oy aayadda qur-aanka inoo sheegaysaa walaalka ood wax ka sheegto ood xamato ood hortiisa cay ka sheegto oo bulshada ceeb u dhex mariso waxay la mid tahay hilibkiisi isagoo meyda adoo cunay ayay la mid tahay. xadiidka labaad een raba inaan idiin sheego oon labada gabdhood meesha u marinaya waxa weeyaan nebigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam kullu ummatii mucaafaa ummaddayda dhammaanteed waa la cafiyey dembi kastoo ka dhaca xumaan kastoo kaa dhacda ilaahay wuu ka cafiyey subxaanahu wa tacaala. kullu ummatii mucaafaa waa la cafiyey buu leeyahay nebigeennu calayhi salaatu wassalaam saasuu leeyahay nebigeennu. wax laga soo reebaya ma jira. waa zinaysatay waa lagu cafinaya haddaad ilahay u toobad keento shuruuddeedii marto. waxbaad xadday waa lagu cafin haddii shuruuddeedii aad marto. waxbaad dishay waa lagu cafin haddii shuruuddeedii aad marto ood ka toobad keento dhammaantood. waxbaad xamatay wax kasta oo samayso khamri baad cabtay wax kastoo xumaanoo samayso ilaahay wuu kaa cafin haddaad ka toobad keento. wax aan laiga cafinayn miyuu jiraa? nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam ila almujaahiriin kuwa la jahra xumaanta kuwa kor u qaata ee dadka dhexdooda ka sheega xumaanta ee hadallada xun isu gudbiya ee wixii ilaahay ay sameeyeen ee xumaanta ahaa isku caaya ee ummadda dhexdeeda ka sheega. nebigu wuu fasire wuxuu yidhi mujaahiriintu waxa weeye qof baa xumaan samaynaya caawa habeenkii buu xumaan samaynaya ilaahay baana asturay oo dadku mayna ogeyn markuu zinadan sameeyey markuu wax xadayey markuu wax dilayey markuu khamrida cabayey markuu dhibaatada xumaanta la imanayey dadku mayna ogeyn. allahuma waxaa laga yaabaa isagiyo qofkii xumaanta isla samaynayay keli aynay is ogaayeen ama dad yar oo kaloo saaxiibada ahaa baa ku ogaaday ayagiina way ku astureen adigiina waxaa la rabay ayagiina way ku astureen oo kuma sheegayaan. adiga maxaa laga rabaa marka inaad xumaantii qarsato oodan dadka u sheegin. nebigu wuxuu yidhi marka qofka ilaahay asturay ee xumaantiisa sheega ee bannaanka soo dhiga ilaahay dembigiisa ma dhaafo ilaahay ma cafiyo. kullu ummatii mucaafaa ila almujaahiriin kuwa wax la jahra ee xumaanta la jahra mooyaane. qofka xumaanta uu sameeyey bannaanka soo dhiga dadka dhexdiisa ka sheega ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaanta kama cafiyo. waxaa inoo sheegay anigu maana sheegin ee nebi maxamed ayaa inoo sheegay. nebi maxamed baa inoo sheegay inaan laga cafinaynin qofka laakiin dunuubta kale oo dhan waa laga cafin. dembi aad samaysay ood ummadda kala hor xishoon weyday oo ilaahay intuu ku asturay ummadda dhexdooda aad si soo dhigtay. taa waxaa ka dhigan walaashaabaa wax kaa ogeyd xumaan aad samaysay bay kaa ogeyd sida gabdhaheennan hadda ka muuqata xumaan baad samaysay saaxiibadaabaa ku ogeyd markaasaad caytantay ood gabadhii la dagaalantay ceebahaad adigu ka ogeyd baad sheegtay ayaduna ceebahay kaa ogeyd bay sheegtay. maxaad noqonaysaan labadiinniiba maxaad noqonaysaan dad xumaanta la jahra oo hadalka xun dadka dhexdooda isaga tabiya oo xumaantay isku ogaayeen bannaanka soo dhiga ayaad noqonaysaan. waxaadna gelaysaan kuwii ilaahay una cafinaynin baad gelaysaan. walaalayaal waxaan idinka codsanayaa labada gabdhood ee walaaladay ah een i kala xigin ee soomaaliyeed weligay wejigooda inaan social media ku arka mooyaane midna si gaara uma arag. labada gabdhood ee walaaladay ah waxaan ka codsanayaa xumaanta inay joojiyaan xumaanta inay iska dhaafaan. qur'aanka kariimkii wuu diiday xumaanta sunnada nebigeenna calayhi salaatu wassalaamna way diiday xumaanta la sameeyo oo dadka dhexdooda xumaanta wixii idinka dhacay qaar laga yaaba inay been yihiin oo ina idinkaba dhicin ood isku caayaysaan qaarna waxaa laga yaabaa inaad maadaama saaxiiba soo ahaan jirteen qaar laga yaabaa inaad is ogeydeen wixii maanta inaad dadka dhexdiisa isku caydaan inaad bannaanka soo dhigataan waxaad noqonaysaan kullu ummatii mucaafaa ummaddayda dhammaanteed waa la cafiyey ila almujaahiriin kuwa xumaanta ilaahay ka asturay bannaanka keensadee soo dhigta mooyaane. waa midaasina waa xadiidkii koobaad. xadiidka labaad ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxa weeyaan nebigeennu wuxuu yidhi ina allaha laa yuxibu kulla faaxishin mutafaxishin saasuu leeyahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixa xadiidkanina. ina allaha laa yuxib ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala kullu faaxish mid kasta oo xumaanta sameeya mutafaxish xumaanta muujista oo bannaanka oo raadraadiya xumaanta walaalkii buu raadiyaa isaguna xumaan buu la imaadaa. faaxish weeyaanoo xumaanta ayuu sameeyaa faaxish weeyaanoo xumaanta ayuu galaa zinaduu galaa beentuu sheegaa waxbuu xadaa waxbuu dilaa waxbuu dhibaato u geystaa. mutafaxish weeyaanoo dadka kale xumaantooda ayuu raadiyaa
ilaahay qofkaa ma jecla laba gabdhood oo walaalahay ah muslim ah diinta islaamka lagu dhalay aabbo muslim ah hooyo muslima ay dhashay ayaa tihiin ilaahay inuu idin jeclaado ayaad rabtaan annaguna ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa inuu ilaahay idin jeclaado subxaanahu wa tacaala muslimiintu inay idin jeclaadaan haddaad rabtaan maxay ku xidhan tahay ina allaha laa yuxibu kulla faaxishin mutafaxish mid xumaanta sameeya oo haddana xumaanta dadka raadiya ilaahay marnaba ma jeclaado walaalayaal laba gabdhood oo soo kacay baad tihiin ilaahay baa nicmo idin siiyey dhibaatooyin baad soo marteen baahi baad soo marteen sheegsheegi mayno gudaha u geli mayno dhibaatooyinkaad soo marteen laakiin mid walbo idinka midaba way og tahay muddo ka hor halkay joogtay siday ahayd way og tahay ilahayna qur'aankiisa wuxuu leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddii nicmada ilaahay ku siiya aad ku shukrido ood ilaahay uga mahadnaqdo ood ummadda nabadgeliso ilaahay muxuu kuu samaynayaa laaziidannakum waan idiin ziyaadinaynaa buu alla ku leeyahay subxaanahu wa tacaala walain kafartum haddaad gaalowdaan see loo gaaloobi nicmadii baad ka shukrin weyday kibir iyo caytan iyo maalin walba ummadda muslimiinta inaad dhibaato ka dhex dhaliso ayaad bilowday kibir baad ka qaaday nicmadu ilaahay ku siiyey reerku ilaahay ku siiyey kibir baad ka qaaday xoolihii ilaahay ku siiyey kibir baad ka qaaday magacaaga iyo shuuradii ilaahay uu ku siiyey kibir baad ka qaaday walain kafartum ina cadaabii la shadiid allah wuxuu leeyahay cadaabkaygu wuu daran yahay ayuu leeyahay cadaabka ilahay uu diyaar garooba waan ka xunnahay ilahay waxaan ilahay idinka baryayaa labadiinaba iyo annaga iyo aniga iyo dadka walaalahena muslimiinta oo dhanba inuu ilaahay ka badbaadiyo cadaab ilahay cadaab inuu ka badbaadiyo ilahay cadaab waxay ku mudan lahaayeen uu garamariyo ayaa ilahay weydiisanaya subxaanahu wa